kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa garoonka jaamacadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir kooxda kubadda cagta ee madbacda qaranka ayaa bilaabaysa baaska ugu horeeya ciyaarta Liban Baragedi ayaana u taagan Liban Baragedi ayaa u taagan baaska koobaad ee ciyaarta Liban Baragedi ayaa baaska ugu horeeya ee ciyaarta sameynaya Liban Baragedi ayaa sameynaya baaska qaybta koobaad ee ciyaartu uu sameeyay dhexdo la ciyaaray garabka midig ayaa kubadda la geeyay markan waa kan xidiga lambarka faraade Maxamed Muxudiin geeska la geeyay markan Liban Baragedi isaga duulaana la soo ciyaar saaxiibkiis banaanka looga saaray kubadda Fortur kooxda madbacda qaranka ayaa sameynaysa biraanka dambeedka midig ayaana sameynaya ifayaanki faawul ayaa loo dhigay isaga laga dhigay maadaama gordhow jaala qaatay balsoon markan ka jaalaha soo turanaysa Abdiqani Maxamed Maya ojojo no goal goolna waa la leeyahay calankan waa taagaya kulay weli waneel ayaa sheekadu noqon doontaa siday u badan tahay gool yeebar geeska laandama koona ayay soo samayn doonaan ciyaartooyda kooxda gantaalaha afgooye waa la soo tuuray kubadda jojo Maxamed Cabdullaahi ayaa ugu dambeyntii shabaka gaaray waa neel ayaa sheekadu noqotay gool yeebar kubad geeska laga keenay gool ayaa soo dhaaftay ayuu ugu dambeyntii shabaka dhex dhigay Maxamed Cabdullaahi laacibka lambarka 17 ee kooxda gantaalaha afgooye Xasan Nuur ayaana soo sameynaya Xasan waa uu soo tuuray kubadda goolka labaad ee ciyaarta ay dhaliyeen ciyaartooyda kooxda gantaalaha afgooye isla kubad geeska laga keenay Maxamed Cabdullaahi ayaa dhameystiray 2 gool yeebar الفيعن مركنا كوبدا والله صوتوري وكان عبد الله وايسو عليين جول عيارتودا كوحده كوبدا عagtay madbacada qaranka laacibka la barkashanaad ee Usmaan Abdallah ayaa dhaliyay goolka 2 gool iyo gool ayay sheekada noqotay Usmaan madax ayaa lagu celiyay way ku laba celiyeen Cabdiraxmaan ayaa ku laba celiyay ugu dambeyntii ciyaartu way soo ilaatay 2 gool iyo goolna ciyaartooyda kooxda gantaalaha ayaa ku adkaadeen